بسم الله الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. habeen wanaagsan walaalayaal. janankeyga kale oo su'aalo iyo jawaabo badan ayaad ka heleysaan qaybta description-kaad ka heli doontaan insha allah. sidoo kale tiktokeyga jawaabo yaryar dad su'aalahooda kooban ayaan ugu soo jawaabaa isla caawadan qof ayaan ugu soo jawaabay asigana waxaad ka heli doontaan description-ka. su'aalaha gaagaaban qaybta tiktok ayaan idinka soo jawaabi doonaa insha allah. halkan waxaan kasoo deyn doonaa mawduucyo. walaalayaal caawa mawduucan ka hadlaya wuxuu ka hadlayaa aragtida nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. rasuul calayhi salaatu wasalaam markaa riyaad ku aragtid caadi ahaan anagoo dhan waxaan wada ognahay inuuna shaydaan iska dhigi karin sawirkiisa, yacni sidoo nebigu eg yahay salawaatullahi calayhi wasalaam inuuna shaydaan isku ekeysiin karaynin. laakiin taa kuma diideyso, yacni uma diideyso shaydaan inuu iska soo dhigo nin quruxsan, maxay ahayd qaab quruxsan leh, qamiis xiran, inuu iska kaasoo dhigo oo ku yimaado oo ku yiraahdo aniga nebiga ahay. taa way dhici kartaa. marka muhiimadda loo baahan yahay waxay tahay rasuul calayhi salaatu wasalaam inaa ogaatid sida uu eg yahay, sifaadkiisa, wejigiisa, qaabkiisa, dhirirkiisa inaad ogaatid waa muhiim si aad u garatid markaa riyaad ku aragtid inaad ficlan nebiga calayhi salaatu wasalaam aa riyaad ku aragtid. calaa kulli xaal in badan su-aashan jawaabteeda waa ka gaagaabsan jiray, waayo qofkii oon ku siinaynin suuradda uu u ekaa nebiga tafaasiilkaas oon ku siinaynin laakiin ku dhahayo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aa riya ku arkay ii fasir. taana in xoogaa laga digtoonaada ayaa fiican, waayo qof walboo riyaad ku aragtid oo u ekaa qof iftiinayo quruxsanaa ahludiin ahaa nebigi waay lama dhihi karo. sidaa darteeda hadda mawduucan ayaa sameynayaa qof walboo riya ku arkay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ha kaga faa'iideysto sifaadkiisiyo sidoo u ekaa qaabkiisa. isla mawduucan kama dhigi karo, laakiin youtube waad ka heli kartaan shuyuuq badan oo ka hadlay suuradda nebiga calayhi salaatu wasalaam. haddaad u baahan tahayna qaybta komitiga iga soo reeba, mawduuc kalaan sameyn doonaa aan idinka sheegi doonaa sida u eg yahay si aa markaa riyaad ku aragtid aad u ogaatid. waa kusii fogaaday horu dhaca aan u gudagalo barnaamijkeena. aan ka horeeyo arrin yar oo ku saabsan riyada nebiga calayhi salaatu wasalaam. haddaa ku riyootid adoo la dagaalamayo kale riya aad ka soo horjeedid aad la murmaysid oo kale taa ma fiicno. laakiin kasoo qaad riyada dhexdeed waxaad ku riyootay adigoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam alaabihiisa aad wax ka barbaaraysid, yacni alaaba usi leeyahay oo kale, mise waxaad la cunaysaa, waa la fadhidaa, waxyaabahaas oo kale wax shu-uuntiisa ku saabsan ayaad la fargashanaysaa riyada dhexdeed. yacni lacala kasoo qaad saasaad ku riyootay. taa waxay tilmaamaysaa inaad tahay qof raadinaya sunnada rasuulka, yacni inuu raaco, qof raadinayo waddadii asiga ku socday inuu maro, mise ficlan ooba ku taagan ayaa tahay. sidoo kale qofka hadduu ku riyooda asigoo la hadlayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam mise la sheekeysanayo waxay tilmaamaysaa arsaaqad badan, yacni arsaaqad weyn waxay doontaba ahaato. caadi ahaan qofka rasuulka riyo ku arka inta badan bishaaray u tilmaamaysaa. gabadha la qabo waxay u tilmaamaysaa uur iyadoo la sheekeysanaysa hadday riyo ku aragto. gabadha la qaban waxay tilmaamaysaa aragtida iyadoo rasuulka la sheekeysanayso guur. sidoo kale sidoo asiga noo ballan qaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ah hadduu wuxuu yiri qof riyo igu arko anigoo dhammaystiran uu yidhi, yacni suuraddiisii asigoo caadiya sidoo adduunka ku ahaa qofkii riyo ku arka wuxuu yidhi kamaa yaraani fi yaqada, yacni inaa soo jeed igu arkiyo kale, yacni inayna riyo ahayn. marka inta badanba culimmadu waxay dhahayaan tafsiir hataa uma baahno, waxay tilmaamaysaa qofka inuu yahay dadka aakhiro ku arki doono nebiga, yacni nasiibka u yeelan doono maadaama hadda asiga ifka uuna joogin. marka badanaa taa uma baahno fasir. haddaa riyaad ku aragtid nebiga calayhi salaatu wasalaam oo qaabka suuraddiisana aad taqaanid, hore xadiisi aad ugu dhegaysato oo taqaanid, riyadaasoo kale dadba hala wadaagin, yacni nafsadaadan u bishaaray, maxaad rabbigaagan ugu mahad celi. sidoo kale aragtida rasuul calayhi salaatu wasalaam waxay kuuga bishaaraynaysaa haddaad xanuunsaneed caafimaad, haddii cibaado yari jirto insha allah toobad, haddii ay jirtay maxay ahayd diiqad iyo murugo faraj,
haddii guur iyo arrimahaas ay kaa cuslaadeen insha allah inuu rabbi kuu xaqiijinayo khaasatan qofka ahlu digriga ahlu saalax ah marka riyadan oo kale arka bishaarooyin badan ayay u tahay walaalayaal waxaa idinka codsanaya inaa in badan janankan noo sheergaraysaan in badan aad sheergaraysaan guruubyada meelaha aad ku jirtaan sidoo kale tiktoka aad soo booqataana falow dhahdaan waayo insha allah waxaan kusoo deyn doonaa su-aalo badan jawaabtooda sidaa hore idinku sheegay way ii fududahay inaan dhaqsi aan wax soo duubo aan soo dhigo tiktoka waayo hal qof iyo laba qofood aan kusoo jawaabi karaya midda kale aan idinku codsanaya waxay tahay insha allah su-aalaha qaybta tiktok iigu soo diro haddii su-aalo ay jiraan si aan meeshaan uga akhriyo meeshaan idinkaga soo jawaabo halkaasaan kusoo koobaya wassalaamu calaykum